qofka Soomaaliyeed ee meesha tagay wuxuu wataa in badan oo kamid ah afarta shay ee wadanada loogu necab yahay waa muslim deegaanadaasi muslimka lagama jecla bale haddaad tareenka ama baska fuusho tidhaahdo la garta inaad muslim tahay waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan muslim lama jecla waa laba waa nin madowgana lagama jecla waa saddexe waa laaji waa qaxoonti waa infandareere laajigana lama jecla waa afare waa wax mahayste waa faqiir bulshadaasi category-ga ay u dhisantay waxa weeyaan siday u kala hanti badantay u kala koraysaa idan waxa laaliya wax aan la soo dhaweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa waxaad noqonaysaa dib baan ka sharxi doonaaye qofka la yidhaahdo waa muqtarib alghuraba waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay abwaanka Soomaaliyeed ee Hadraawi la yidhaahdo Hadraawi tagay meeshaasi mudduu yara joogay dabeetana wuu soo noqday ka waran baa la yidhi wuxuu yidhi intii aan meesha joogay waan iswaayay buu yidhi isaga iswaayay wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayay yani waa ghurba rasmiya culamaa tib ayaa waxay yidhahdaan iqtiraabka waxa la yidhaha fi lmucjam tibbi iqtiraabka waxay yidhahdaan waa idiraab waa isbaranbarin caqliga ku dhacda oo ka dhigta qofku inuu gariib ku noqdo daatadiisa iyo mujtamaciisaba naftiisa iyo mujtamaciisaba inuu gariib ku noqdo culamaa ilfalsafana waxay yidhahdaan waa qofkoo jawharkiisa waaya soo duuduub waad iswaayaysaa markaad halkaa tagto waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid halkan barigaad joogtay inaan Soomaaliyeed oo reer hebel aan ciidaba ka sarreynin oo bulshada inuu isagu ugu sarreeyo isu haysta oo caynkaasaad ahay waladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxay rumaysantihiin bulshada tan nawcun ma siba u xaqirtaan nin madow oo tima adag oo waxba haysan oo ka hooseeyo Soomaaliga dadkana waxa bay moodaan inuu lacagta sido marka halkan waxa la idinka haystaa dad wax haysta inaad tihiin bulshooyinkana la joogtaan laakiin xaggoo waxaad ka tahay muslim madow xunti wax ma hayste intaasaad ku astaysan tahay